wasiirka wasaaradda kheyraadka biyaha Soomaaliland Baasha Cali Jaamac oo TV qaranka ugu horeeyay xarunta wasaaradda kheyraadka biyaha ayaa waxa uu ka hadlay qalab kala duwan oo isugu jira beebab iyo mishiino ay u kala dirayaan deegaamada kala duwan ee abaartu saameysay ee dalka waxaanu iftiimiyay wasiirku inay isla maanta ay xarunta wasaaradda ka anba bixiyeen laba gaari oo riiga oo loo kala diray deegaamada ay abaartu ka jirto ee bariga iyo galbeedka iyo sidii dadkaasi loo gaarsiin lahaa biyo ay cabaan isagoo sheegay wasiirku in waqtigan lagu jiro waqti abaareed oo guud ahaan saameysay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland maanta waxaanu anba bixinaynaa qalab mishiino beebab bambooyin aan u kala dirayno 6 ceel 4 galbeeda iyo 2 bariga afarta galbeedka waxa weeye waa dameera boob waa karuure waa botor iyo gargoore xagga barigana hadaaftimo iyo awrbogays ayaanu iyagana qalabkoodii mashiinadooda diraynaa injineeradii arintaas waxay ku wajahan tahay abaaraha iyo dhibaatada jirta haddii uu dadka la yiraahdo biyadhaamisku waa waxaan si joogta ahaanaynin laakiin in ceelashii loo sameeyo ceelashaas oo dhan oo wada fadhiyay qaarna cusub yihiin si ay biyo joogto oo nadiif u helaan abaarahana uga qayb galaan dhinaca kalena wasiirka kheyraadka biyaha ayaa shaaciyay inay biyadhaamis ka sameeyeen gobolada Sanaag iyo Sool ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan kaloo iyadana ka bilownay biyadhaamis wasaaradda UNICEF gobolka Sanaag gobolka Togdheer iyo gobolka Sool iyadana ay maanta gaareen raggii halka ka anbaxay hawsha bilaabay wasaaradda agaasimayaashii wasaaradda iyo raggii ugu waaweynaa wasaaraddan xagga u diray si ay hawsha u fuliyaan oo dadka jilicsan waxay gaarsiin karaan u gaarsiiyaan Qadar Maxamed Maxamuud iyo Cabdi Cumar Jibriil telefishin qaranka Soomaaliland xarunta wasaaradda biyaha